waxaa ila taagan halkan xarunta dhaqanka ee Hargeysa Maxamed Aadan Dacar oo ah abwaanada waaweyn ee Soomaaliyeed isla markaana gudoomiyaha abwaanada Somaliland abwaan Dacar imika Hargeysa imika wadagta arrimihii waxay noqdeen barihii bulshada iyo Facebook iyo wad maqasho walba arrimaha ka waran abwaanadiina hore ma la qabsan karaysaan waxa weeye waa kudkiyo kama loo talo waxay beentiyo been lagu sii daray weeyi imika in yaroo dhalinyaro gelaya dabadeetana isu kaag sawiraya adeer dabadeetana Facebook gelaya Maxamed Aadan Dacar oo lacag ka qaatay qoladii oo dabadeetana caayaya reer Maxamed Guuldaare ayuu gelinaya meel walba u yaal wuxuu kordhiyay been uu kordhiyay xallo wax technology uu kordhiyay oo dhaqanka Soomaalida uu ku kordhiyay iyo wuxuu ku soo kordhiyay ma jiro been iyo isku dir iyo bahaab u kordhiyay thank you intii aad halabuurka ahayd muddo dheer weeyaan maxaa ugu cajiibsanaa ee aad nala wadaagi karaysaa wallaahi fanku uu dheeriyay uu badan yahay laakiin habeen igu darayd ma garanayee laakiin markaan xidhnaa baa ugu darayd waxa kaloon kuu sheegi karo waxaa ka mid ah dalcadeedu laba tahay dayuxuna 9 yahay dacalkiisu 100 jeer kiina darfee dheer yahay oo dushiisu ugub tahay gudihiisu dihin yahay doogiya calintiya macdanaan dilkeedii dhulka weli u soo degin deeqduna ku badan tahay uu dagaalku ceeb yahay deganaansho iyana dadku ku nool yahay digtaa dushiiniya dagaaran fadhii jiray dad dan baan xukumi jiray dawlad baan ka talin jiray waxa dumiyay riday aanin dardaarmee daaraan qabiil baa doonigu lahayd duntigiyo xigaalka dubkayga jiray waxaan daadahan jiray dariska iyo xididka cidimay dureen jirin inaan diir wadaagno dabar laguma xidhi jirin haddii laga dacwoodo anigaan daraaday loo daari jirin dadku inuu ogaadana waan diidi jiray hala duugo qolo daxashada warkaygaan ku dareerin jiray taladba kumaan darin waa lagu dareemee ilan duunta igu taalo uun kuu dareensaday shicibkii barbaad diday durba laygu soo koron daldaloolku igu baday dundumada sideedii dugsi bahalgaleen iyo noqday degal qanin badan dibqalooca iyo halaq igu soo dugaashaday hadduu daacad yahay ruuxu waxba uma dirtoo nacay weeshaday dambiilaha inta daradiraagaa ka daaweystay aadmiga boqorkii dardaray ee darka jiray baan